السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كوزو دوادا قضبضا واركا كالفردي دي في قدور كرون قضبضا عادكم مغلي دونتانا وحا كميدا حلبان كتسن بارلمان كسوماليا او شيغا ان دولة فدرال كشعب كجبلان اي مرينيسا عقاب وضرد دولة سوماليا او وركا سو سارتay go'aanka maxkamadda ICJ ay dib ugu dhigtay kiiska badda Soomaaliya iyo Kenya u dhaxeeya iyo madaxweynihii hore ee dalka Zimbabwe oo geeriyooday qodobadaas iyo qodobo kale ayaa daawadayaal ku maqli doontaan warka Kalfadhi TV haatan ku soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan xildhibaan Cabdifataax Ismaaciil Daahir oo ah gudoomiyaha guddiga duulista hawada gaadiidka wadooyinka dekedaha iyo tamarta ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ahna gudoomiyaha ku-xigeenka siyaasadda iyo istiraatiijiyadda ee xisbiga UPD ayaa waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay ciqaab wadareed marinayso shacabka Jubbaland xildhibaan Cabdifataax ayaa waxa uu sheegay in xayiraadda dhanka hawada ee dawladda federaalka ay saartay duulimaadka dawlad goboleedka Jubbaland ay tahay arin ay ka dhalan karto hoos u dhac dhaqaale iyo arrimo bini'aadanimo oo soo wajaha shacabka ku dhaqan deegaanada Jubbaland xildhibaan Cabdifataax oo ka hadlaya arinta xayiraadda duulimaadka lagu soo rogay Jubbaland ayaa waxa uu yiri go'aanka lagu xayirayo duulimaadyada Kismaayo ma aha mid waxyeelaya maamulka Jubbaland balse waa mid ciqaab wadareed iyo dhibaato weyn ku ah muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ka soo jeeda deegaanadaasi dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa war ka soo saartay go'aanka maxkamadda caalamiga ee adduunka ay dib ugu dhigtay kiiska badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya ambassador Ali Saciid Fiqi oo ah danjiraha Soomaaliya ururka midowga Yurub ayaa ka hadlay go'aankii ka soo baxay maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ ee dib loogu dhigay muddo 2 bilood ah kiiska badda ee u dhaxeeya dalalka Soomaaliya iyo Kenya safiirka ayaa waxa uu sheegay in ICJ go'aankaasi ay qaadatay kadib markii ay tixgelisay codsigii ka yimid dhanka Kenya iyo sidoo kale jawaabtii ay ka bixisay dawladda federaalka ee Soomaaliya Fiqi ayaa waxa uu xusay inaysan wax dhibaato ah u arkin go'aankan isla markaana aanu ahayn mid dhibaato ku ah Soomaaliya sidoo hadalka u dhigay sidoo kale wuxuu tilmaamay inay soo dhaweynayaan tallaabadani isla markaana ay ku faraxsan yihiin haatan wararka geerida madaxweynihii hore ee dalka Zimbabwe Robert Mugabe ayaa dhintay isaga oo 95 sano jir ah wuxuuna Zimbabwe maamulayay in ka badan 30 sano wuxuuna xil ka qabtay kadib xorriyadii dalkaasi kadib markii dhaqaalaha Zimbabwe si weyn u burburay sanadihii la soo dhaafay dad badan ayaa saadaalinayay in Mugabe isna dhici doono balse markaas taasi waa uu beenaynayay ilaa xilka laga tuuray sanadkii 2017 oo militariga ay si kooban ula wareegeen Zimbabwe xilligaasi wuxuu la saftay xaaskiisa waxaana looga shakiyay inuu taageeray in isaga ay badasho xaaskiisu taasi oo uu ku lumiyay taageeradii xisbigiisa iyo waliba ciidanka kuwaasi oo xukunka ku hayay ilaa xilka laga tuuray ka hor doorashooyinkii 2008 waxa laga soo xigtay inuu yiri hadii doorashada lagaaga reeyo dadkuna ku nacaan waa inaad iska tagtaa markii kaalinta labaad uu ka galay doorashada wareegii labaadna loo gudbay waxa uu Mugabe sheegay in alla oo kaliya uu xilka ka qaadi karo si uu taageerayaashiisa u badbaadiyo Morgan Tsvangirai ayaa ka baxay wareegii labaad ee doorashada kadib markii ciidamada ay bilaabeen inay dhibaateeyaan mucaaradka iyada oo markii dambe Mugabe lagu qasbay inuu awood qaybsi la sameeyo Morgan oo laga dhigay ra'iisul wasaaraha Zimbabwe muddo 4 sano ah fikradda uu ka qabo mucaaradka waa iska cadeyd sanadihii 1980 xilligaasi oo ciidamadiisa sida gaarka u tababarnaa ay weerareen degmada Matabeleland halkaasi oo lagu laayay kumanaan ka mid ah taageerayaasha Joshua Mkomo oo ahaa hogaamiyihii mucaaradka sooyaalka ama taariikhda Mugabe oo kooban sanadkii 1924 ayuu dhashay Mugabe sanadkii 1964 waxa xabsiga galiyay dawladii gumaysiga ee Rhodesian sanadkii 1980 wuxuu ku guuleystay doorashooyinkii dhacay xornimada kadib sanadkii 1996 wuxuu guursaday xaaskiisa Grace Marufu sanadkii 2000 wuxuu ku guul daraystay afti kadib ciidamo taabacsan ayaa weeraray beeraha cadaanka sanadkii 2008 kaalinta labaad ayuu galay doorashooyinkii guud ee dalkaasi ka dhacay sanadkii 2017 waxa xilka ka qaaday madaxweyne ku-xigeenkiisii Emmerson Mnangagwa iyo militariga dalkaasi mar waxa loo arkay inuu yahay haliyay dalkiisa iyo dadkiisa u halgamay meeshana ka saaray xukunkii cadaanka tirada yara ee dalkaasi majaraha u hayay waana sababta hogaamiyaal badan oo Afrikaan ah ay uga gaabsadaan inay dhaleeceeyaan adduunka intiisa badan hore ayuu u socday balse isaga halkiisii ayuu taagnaa marka laga hadlayo fikradiisa ku aadanaa
dowladaha reer galbeedka. qof kasta oo dhaleecayn u jeediya guumaystaha waxaa loogu yeeri jiray qaa'inul wadan ama dabadhilif. kelmadaasi oo markii lagu guda jiray halganka hubaysan qofkii lagu dhaho ay ka dhignayd xukun dil ah oo kale. waxaa saarnayd cunaqabatayn muddadii uu xilka hayay, taasi oo ka dhalatay markii uu beeraha ka qaaday dadkii caddaanka ahaa ee Zimbabwe deganaa. markasta oo dhaqaale burbur Zimbabwe ku yimaado waxa uu Mugabe ku eedeyn jiray dalalka reer galbeedka oo ay hogaaminayso Britain, wuxuuna sheegi jiray in ay doonayaan inay xilka ka tuuraan xoogna kula wareegaan dhulka beeraha ee Zimbabwe. dadka isaga naqdiya ayaa ku eedeeya inuusan fahansanayn sida uu u shaqeeyo dhaqaalaha adduunka casriga ah. wuxuu muddo badan ku mashquulsanaa sida loo qaybsanayo khayraadka dalka halkii uu ku mashquuli lahaa sidii loo kordhin lahaa ama kor loogu qaadi lahaa dhaqaalaha Zimbabwe. Mugabe ayaa mar yiri hadalkii caan baxay ee ahaa in dalkiisa uusan marnaba musallafi doonin, balse sanadkii 2008 Zimbabwe waxa ay ahayd markab sii quusaya oo kale. sicir bararkana wuxuu gaaray 231 milyan boqolkiiba, waxayna u ekayd in Mugabe uu doonayay in uu ka war doono xeerada salkeeda. Professor Tony Hawkins oo ka tirsan jaamacadda Zimbabwe ayaa yiri markasta oo siyaasadda iyo dhaqaalaha isbarbar qabtaan siyaasadda ayaa guuleysan jirtay. sanadkii 2000 markii uu la kulmay mucaarad adag, wuxuu markiiba buris u qaatay burburinta dhaqaalaha Zimbabwe oo ka mid ahaa kuwa ugu wanaagsan Afrika si uu ugu guuleysto hardanka siyaasadda. wuxuu la wareegay beerihii ay lahaayeen dadka caddaanka kuwaasi oo lafdhabar u ahaa dhaqaalaha Zimbabwe, waxaana meesha ka cararay deeq-bixiyaashii caalamka. haddii si kale loo dhigo Mugabe wuxuu ka reeyay mucaaradkiisa oo dhan isaga oo xukunka ku sii nagaaday. kaartooyinkii uu isticmaalay isaga iyo taageerayaashiisa waxaa ka mid ahaa tii berigii jabhadda ay ahaayeen. markii uu dhadhamiyay guuldaradii koowaad ee doorashada sanadkii 2000 xilligaasi oo uu ku guuldaraystay aftidii dadka laga qaaday, waxa uu howlgeliyay maleeshiyaadkiisii oo wata magaca halyeeyada dagaalka kuwaasi oo gacan ka helaya ciidamada amniga. waxayna bilaabeen inay laayaan mucaaradka, qaar ay jir dilaan iyo waliba qaar la cabsi geliyo. 8 sano kadib isla arintii oo kale ayaa dhacday kadib markii Mugabe uu galay kaalinta labaad ee wareegii koobaad ee doorashada, waxaana kaalinta koobaad ka galay hogaamiyihii mucaaradka Morgan Tsvangirai. marka loo baahdo dhammaan qaybaha kala duwan ee dawladda sida ciidamada, shaqaalaha rayidka iyo waliba warbaahinta oo ay gacanta ku hayaan xubnaha xisbiga ZANU-PF ayaa la howlgeliyaa si loogu adeego danaha xisbiga. ninkii u dagaalamay inuu hirgeliyo nidaamka hal qof iyo hal cod ayaa markii dambe soo rogay in qof kasta oo codka dhiibanaya uu cadeeyo halka uu degan yahay, isla markaasina uu keeno waraaqaha uu ku bixiyay korontada iyo biyaha, taasi oo aysan heli karin dad badan oo dhalinyaro ah oo fuqara ah una badnaa taageerayaasha mucaaradka. fikradda uu ka qabo mucaaradka waa ay iska cadayd sanadkii 1980 xilligaasi oo ciidamadiisii sida gaarka u tababarnaa ay weerareen degmada Matabeleland, halkaasi oo lagu laayay kumanaan ka mid ah taageerayaasha Joshua Mkoma oo ahaa hogaamiyihii mucaaradka xilligaasi. Mr. Mkoma ayaa markii dambe aqbalay in uu awoodda la qaybsado Mugabe si la mid ah sidii Tsvangirai uu u aqbalay 2008 kadib markii la laayay kumanaan taageerayaashiisa ah. waxyaabaha aan shakiga lahayn ee 33 sano ee xilka haya u qabsamay Mugabe waxaa ka mid ahaa waxbarashada oo 90% dadka reer Zimbabwe laga dhigay kuwa waxna qora waxna akhriya, balse taasi waxa ay horseeday in dadkii aqoonta yeeshay ay darsaan dhibaatada Zimbabwe kadibna qaataan go'aano ay kaga soo horjeedaan isaga. dhambaalo laga soo xigtay dawladda Mareykanka oo lagu soo daabacay bogga WikiLeaks sanadkii 2011 ayaa lagu sheegay in Mugabe uu qabo kansar, balse sidaas oo ay tahay wuxuu markasta sheegi jiray in xilka uu ka dagayo marka uu ku guuleysto halganka uu ku jiro. waxaase marar badan soo baxayay wara suuqa ku jiray oo ahaa in xisbigiisa ZANU-PF ama dalalka dariska ay xukunka ka tuuri doonaan Mugabe, taasi oo u eg in ay markii dambe hirgashay. su'aalaha ay dad badan isweydiinayaan ayaa waxaa ka mid ah geeridiisa maxay uga dhigan tahay qaaradda Afrika. Robert Mugabe inkastoo muddooyinkii dambe gaar ahaan intii xilka uu ka dagay uu ahaa nin da' ah oo aan wax badan laga qorayn, haddana marka dib loo milicsado taariikhdiisa wuxuu tusaale u noqon karaa hogaamiyaasha Afrika iyo jiilka soo socda. waa marka la eego taariikhdiisa inteeda wanaagsan
geeridiisana Afrika waxay u tahay mid aan lagu farxaynin waxaana ka baxay shakhsi u taagnaa Afrika oo xor noqota kana madax banaanata in reer galbeedka iyo wadamo kale ay soo farageliyaan. Robert Mugabe oo ahaa madaxweynihii ugu horeeyay ee dalka Zimbabwe wuxuu dalkaasi xukumayay tan iyo markii Zimbabwe ay xorriyadda qaadatay, inkastoo waxyaabaha lagu dhaliilay ay ka mid ahaayeen macaangagnimo, xukun jacayl iyo inuusan fursad siinin mucaaradka isaga ka soo horjeeda, cadaadisna uu ku hayay. Haddana wuxuu ahaa nin haliyey ah oo dalkiisa jecel kana dhiidhiyay in wax loo yeeriyo. wuxuu ahaa geesi isku kalsoon, necebna quursiga iyo in Afrikaanku ka liitaan ummadaha kale. taas bedelkeedana wuxuu ahaa nin qab weyn, jecelna in Afrikaanku ay la mid noqdaan bulshada caalamka. wuxuu ku sifoobay cadaan nacayb maadaama cadaanku ay aaminsan yihiin in Afrikaanku ay ka liitaan bulshada kale ee caalamka. wuxuu ahaa nin jecel in qaaradda Afrika noqoto meel la mid ah qaaradaha kale ee caalamka. wuxuu necbaa in Afrikaanka lagu bahdilo shirarka caalamiga iyo kulamada waaweyn ee la isugu yimaado. wuxuu jeclaa in Afrikaanka iyo hogaamiyaashooda la siiyo maamuus iyo weliba xurmada ay mudan yihiin. muuqaalka aad aragtaan waa Mugabe oo qaramada midoobay ka hadlaya, lehna waa in isbedel lagu sameeyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay. wuxuuna leeyahay waa in ay xor noqdaan 54 dal ee ay ka kooban tahay qaaradda Afrika. wuxuu yiri sanad walba bisha September ayaan nimaadnaa xarunta qaramada midoobay, waxaan isticmaalnaa lacaga fara badan, waxaana jeedinaa khudbado. haddana waxaana la leeyahay ma yeelan kartaan awood kamana noqon kartaan xubno joogto ah qaramada midoobay ama golaha ammaanka. xilliga uu hadalka jeedinayay waxaa qaramada midoobay hogaaminayay Ban Ki-moon. Robert Mugabe wuxuu ahaa nin ku dhiirada in uu runta u sheego wadamada reer galbeedka, diidana in wax loo yeedho. taas bedelkeedana wuxuu jeclaa in Afrika loo tixgeliyo inay tahay qaarad xor ah, dadkeedana aysan ogoleyn in la dulaysto. wuxuu aaminsanaa in Afrika xuquuq iyo xilal waxay xaq u leedahay ay ka hesho golaha ammaanka ee qaramada midoobay, loona arko inay isbedel keeni karaan.